nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa la isiyeeshan oo aan la siinin ahad kamid ah ambiyadii aniga iga horeysay kow waxa dhulkan la iga dhigay masaajid iyo mid daahir ah qof alaala qofkii kamid ah ummadayda oo salaada ku haleesho ha ku tugto labo waxa la igu gargaaray argagax in loo socdo 2 bilood micnaha cadowga markaan u jiro meel loo socdo 2 bilood ayuu argagax ku sii dhacaya saddex waxa la ii xalaaliyay qaniimooyinka ahad aniga iga يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين markaad ilaahay dambi weyn ka gashid dhulka wuxuu leeyahay ilaahayow ii ogolow in aan liqo malakul mawdna wuxuu leeyahay ilaahayow ii fasax aan ruuxda ka soo qaade halka qoraxduna ay leedahay ilaahayow ii fasax aan gube rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay haddii aad idinka abuuri lahaydeen waad u naxariisan lahaydeen soo ma mudna in aad dhahdid alxamdulillah nabiyullaahi aadam alayhi salaam markii ilaahay uu sameeyay hadalkii ugu horeeyay uu dhaho waxay ahayd alxamdulillah ahlu jannahana markuu ilaahay ka badbaadiyo naarta iyo dhibaatadeeda hadalka ugu dambeeya ay dhihi doonaan waxay tahay wa aakhiru da'awaahum anil hamdulillahi rabbil alamin maanta ilaahay fursad ayuu ku siiyay maalin kale ayaad nooshahay caafimaad ayaa qabtaa soo ma ahan in aad dhahdid alxamdulillah todoba shay haddii aad laazimtid عاش سعيدا ومات شهيدا نلاشا الدنيا واد ku raaxaysanaysa marka aad dhimatidna amal shahiid baa lagu qorayaa kow an yaqula inda ibtidaa'i kulli shay'in bismillah wax walba marka aad bilaawayso waa inaad ku bilaawdid bismillah wa inda al-firaaq minhum wax walba marka aad ka faaruq noqotid waa inaad tirahdaa alxamdulillah wa idha ra'a ma yakrah hadii aad aragtid wax aad dhibsatid waa inaad tirahdaa la hawla wala quwwata illa billah wa idha ra'a ma ya'tadib hadii aragtid wax aad la fajacdid waa inaad tirahdaa la ilaha illa allah wa idha asaba min musibatin hadii masiibo ku casibto waa inaad tirahdaa qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa idha arada an yaf'ala fi'lan hadii aad rabtid ficil in aad samaysid waa inaad tirahdaa insha allah wa idha adnaba damban hadii aad dambawdid waa inaad tirahdaa astaghfirullah todobadan shay hadii aad laazimtid maanta bishaaran ku sida nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man aada mariidan lam yahdharu ajalu qofkii soo booqda qof xanuunsan oo aysan geeridiisu soo xaadirin faqala indahu 7 maratin agtiisa intuu fadhiista todoba jeer yiraahda as'al allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfik as'al allah al-azim rabbiga weyn waxaan su'aalanayaa rabb al-arsh al-azim arshiga weyn rabbigiisa waxaan su'aalanayaa an yashfiyak in uu ku caafiyo waa kalimaad aad u yar laakiin bini aadmiga waxtar aad u weyn u leh haddii aad sii gudbiso waa sadaqa jaariya qof kasto sii ogaadana ajar ayaad ku leedahay ma ogtahay qofkii ugu horeeyay ee ilaahay dartiis u jihaada inuu ahaa nabiyullaahi idriis alayhi salaam ma ogtahay ruuxii ugu horeeyay ee fardaha fuula inuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil alayhi salaam ma ogtahay aadaankii ugu horeeyay ee samada laga adimo inuu ku dhawaaqay malakul malaa'ik jibriil alayhi salaam ma ogtahay salaadii ugu horeysay ee uu tugto nabiyullaahi muhammad alayhi salaam inay ahayd salaada duhurka ma ogtahay salaadii koowaad ay muslimiintu tugteen markii qiblada laga bedelay baytul maqdis ee loo bedelay kacbada inay ahayd salaada casirka ma ogtahay ruuxii ugu horeeyay ee qalin wax ku qora inuu ahaa nabiyullaahi idriis alayhi salaam ma ogtahay aayada ugu weyn ee quraanka kariimka in ay tahay aayatul kursiga ma ogtahay ummadda ugu horeysa ee jannada ugu horgali doonta in ay tahay
nebiga ayay beeneeyeen waxay ku tilmaameen saaxir iyo majnuun fariintii iyo risaaladii uu u wadayna way diideen banu israa'iil nebigeena waxay ku diideen kibir iyo faan sidee nebi uga soo baxaya carabta anagaa bajoogne nebi kastoo u soo baxo banu israa'iil way beeneen jireen amaba way dili jireen waa asagoo nebigaas ayaga u dhashay mucjizooyin badanna la imaaday laakiin annaga ummatul muxamed sallallahu calayhi wasallam nebigeena waan aaminay waana soo dhowaysanay fariintii iyo risaaladii uu inoo wadayna waan qaadanay waana sii gudbinay ilaahay nebigeena wuxuu uga abaalguday in uu ka dhigo khayrulbashariya aakhirana ambiyada u hormaro annagana ilaahay wuxuu inagu abaalguday in uu naga dhigo khayrul umam kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkar wallaahi nimco ka weyn ma jirto in aad ka mid tahay إلهي قرآن كيس أنبياء أودن مقعيض أيو أغيري إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هني قرآن كينا كمجرو يا محمد لكن قرآن كينا وحا كجرو يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا موسى أقبل ولا تقف يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لكن إلهي قرآن كيس مركو النبي صلى الله عليه وسلم وغيري وحو ليهي يا أيها النبي يا أيها الرسول تاسنا وقدر إيا الشرف لو موجيي نبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو كدغي نبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ومدي سنة وحو كدغي خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون